الله وبركاته أرضي شرفت لها ومركلة يا معلم كي نكمل مستري معلم حمزة عرب وحاين ما أنت مركز وحوي محل إلى هذاي أينو دوبينا 10 كني تضباط chapter كني enthalpy change waxaan ku soo jirnay suuqan dambeysay measuring enthalpy change sida loo cabiro enthalpy change waxaan soo cabir qaadanay maxaa la yiraahdaa measuring enthalpy change of combustion oo ah shay markuu gubanayo tamarta uu soo saaray soo cabir waxaan maanta u tagaynaa measuring enthalpy change of neutralization oo ah marka neutralization wuxuu ahaa maxay falgalka kiimikaad neutralization wuxuu ahaa falgalka kiimikaad dhexmara maxay acid iyo base haddii acid lagu daro base ardayda maxay soo bixi jiray good salt iyo water falgalkana maxaa la oran jiray neutralization haddaba falgalka ah neutralization ka ee ah ka acid iyo base ka dhexmaraya ayaynu cabiraynaa intee in leego tamara ayuu soo saaraya marka hal mool oo acid la barxo ilaan enthalpy change of neutralization waxaan ku soo qeexi jirnay waa enthalpy change ka dhacda marka hal mool oo acid la barxo definition mar walba muhiim standard enthalpy change of neutralization maxay ahayd it is the enthalpy change that takes place when one mole of an acid is completely neutralized hal mool oo acid marka si dhameystiran loo barxo waxa weyn maxaa la yiraahdaa tamarta la soo saaro ama isbedesha ayaa la yiraahdaa enthalpy change of neutralization haddaba waxa la yiri tusaaleheena balaag example baynu marka ku qorayna example tusaaleheena wuxuu oranayaa arday example-kan wuxuu oranayaa Ali in la yiraahdo ayaa measured wuxuu cabiray enthalpy change of neutralization waxa uu cabiray enthalpy change of neutralization buu cabiray using isagoo isticmaalaya the apparatus below qalabka hoosta ka muuqda qalabka xagan kale aynu ku sawirnay isagoo isticmaalaya uu cabiray waayo okay marka dhagan hadaan u nimaadno qalabku isticmaalay ee leeno sheegaya waa halka ku sawiran marka qalabkan arday wuxuu yahay hadaynu xagan soo fiirino waxa la yiraahdaa waa labadan koob yar yar waa laba koob oo kuwii shaaha one time ka lagu qaadanaya ama bunka lagu qaadanayay oo bac laakiin ka samaysan polystyrene ka samaysan polystyrene okay marka waxa loo yaqaan polystyrene coffee cup calorimeter waa calorimeterkii waxa weyn maxaa la yiraahdaa polystyrene bacda ka samaysnaa isla markaana coffee like coffee cup like sida koobka markaas waxa weyn coffee lagu qabto inta lagu qaato weega haddaba polystyrene coffee cup calorimeter kaasi Allahumma salli ala Muhammad waxa labadan polystyrene looga sameeyay waxa weeyaan waayo polystyrene waa excellent insulator sababta loo isticmaalo waa maxay lagu weydiiyo maxaad tiro ku jawaabaysaa waxaan ku jawaabaynaa sababta loo isticmaalo waxa weey waayo waa excellent insulator weeyaan waxa weyn maxaa la yiraahdaa waa ma gudbiye markaas waxa weyn maxaa la yiraahdaa aad u wanaagsan oo waxay ilaalinaysaa marka it prevents heat loss to the surrounding heatku inuu surrounding ku lumo ayay marka waxa weyn maxaa la yiraahdaa ay ka hortagaysaa abagrad halka marka hadii waxa polystyrene loo darbiday cover looga sameeyay waa ama shay bir looga sameeyay koobkan maxaad ku jawaabaysaa waxa leedahay polystyrene waa excellent insulator and it prevents heat loss to the surrounding waa insulator wanaagsan marka heat loss ka ay ka hortagaysaa taadiisa waa polystyrene loo isticmaalay waayo okay kana waa thermometer oo naqaan halkan waxa lagu shubayaa marka inankan waxa la yiraahdaa arid wuxuu ku shubay oo isku daray 25 cm cubic oo ah 2 mole per decimeter cubic concentration keedu yahay oo hydrochloric acid ayaa muxuu ku daray into 25 cm cubic oo 2 mole per decimeter cubic oo sodium hydroxide ayuu isku daray marka eegay labadaas isku daray muxuu isku daray ardayga soo qalabkan isticmaalay xagan bar hadda soo fiiri isagoo ardaygan qalabkan isticmaalay muxuu isku daray 25 cm cubic oo maxay hydrochloric acid ayaa muxuu ku daray 25 cm cubic oo maxay sodium hydroxide base labadaas isku daray labadana isku daray moogta tan concentration keedu waa imisa waa 2 mole per decimeter cubic baa leeyahay concentration keedu tan waa maxay concentration keedu iyadana waxa weeyaan 2 mole per decimeter cubic shardi ma aha in la isla kaysiya okay laakiin ka soo qaadanayso gileeyay way marka 25 cm cubic hadii isla marka imka isku daray laakiin shardi ma aha in la isla kaysiya tusaaleheenu bay naga dhacday waxa leena 25 cm cubic hydrochloric acid ayaa waxa ku daray 25 cm sodium hydroxide ayuu isku daray waxa ku shubay marka thermometer ku shubay laakiin intaanu labadooda isku dareen waxa ku shubay la calorimeter weelkan ku shubay intaanu laakiin labadooda isku dareen mid walba temperature-kiisa hore u cabiray marka acid temperature-keeda markuu cabiray waxa weyn maxaa la yiraahdaa acid temperature-keeda markuu cabiray temperature-keeda wuxuu noqday xagga hoose inuu qoran tahay wuxuu noqday temperature-ka acid 24 degree bay noqotay haye base-kana markuu cabiray temperature-kiisa isagana wuxuu noqday maxay 24 degree buu noqday mala socota halka marka base-kana waxa weyn maxaa la yiraahdaa 24 degree ayo 24 degree ayu temperature-kiisu ahaa intaan la isku darin waxaan jeedaa acid base-kana waxa 24 degree buu ahaa
way inta ma la fahmay markuu labadoodii dabeedna isku daray oo koobkan ku shubay ayuu dib u cabirayaa temperature-kooda marka ay marka bal hadalkan waa soo eeg maxaa la yidhi initial temperature-ka ay soo yidhi muxuu 24 initial temperature-ka alkali ama base-kuna muxuu ahaa wuxuu ahaa markaas waxa weyn maxaa la yidhaha 24 buu ahaa way labadoodii markaas isku daray markuu labadoodii isku daray muxuu cabiray final temperature-kii buu cabiray hardan temperature-kii dambe ayuu cabiray alkali iyo ICD mixture ICD alkali isku jira oo falgalaya ayaa uu final temperature-kooda cabiray noqotay 9 bay noqotay calculate waxa soo saartaa marka enthalpy change of neutralization soo saar soo saar inagoo daatada isticmaalayna ama xogta la inisiye isticmaalayna ayaa waxaan soo saaraynaa marka enthalpy change of neutralization solution-kii balay dhowr step ay marka arday mar doonaa step-ka koowaad waxaan odhanaynaa marka step 1ka waxaan la soo baxaynaa fine waxaan raadinaynaa oo aan la soo baxaynaa delta t oo ah temperature change soo saarayna way halkay ra kala qaybsanna marka temperature change soo saarayna haye temperature change markaan soo saarno maxaa odhanaynaa delta t maxaa lagu heli jiray shayga fariido waxaa lagu heli jiray t final oo laga jaray t initial sayna ma ahayn t final waa imisa marka t final xaggan soo aragno waxa weeyaan 9 iyo 20 bay noo ahayd sooma xagga hore waa idin soo aragnay 9 labadooda la isku daray minus t initial maxay ahayd t initial waxay odhanaynaa labadooda eeg ay sii dhasoo ma ahayn 4 iyo 20 base-kana muxuu 4 iyo 20 soo ma ahayn labadooda inta la isku daro ayaa laba loo qaybinaya marka waxa odhanaynaa marka 4 iyo 20 ay si temperature-keedu waxa ku dartaa base-kii oo ama alkali 4 iyo 20 ay suge labadooda marka la isku daro waxay noqonaysaa 48 dhinaca difaar bay 2 dabeedna u qaybiyay laba head average-ka soo saar waxay noqonaysaa 4 iyo 20 bay noqonaysaa good marka 4 iyo 20 kaas aynu u qaadanaynaa marka initial-ka waxaad samaynaysaa haddii ay si dhaada iyo base-kaagu laba temperature kala duwan ay wataan intaad isku darto ayaad laba u qaybinaysaa average-ka qaadanaysaa marka marka halka ka average baynu qaadanay average waa 4 iyo 20 degree kala gow marka labada marka noqonaysaa good degree ayay noqonaysaa 5 degree u sii bedel Kelvin waxay noqonaysaa 5 Kelvin bay noqonaysaa halka wadi la fahmaysan malaynay ee hadii 2 Celsius la kala jaro Kelvin bay leeyahay ha oran muxuu macalinku ku diray 273 horaan ku soo hadalay soo cadayn ka fiidiyada hore daawan doonta insha Allah waayahay okay waxaan la soo baxnay marka maxaa la yiraahdaa waxaan la soo baxnay heat-kii biyaha galay waxaan la soo baxnaa temperature rise-ka la soo baxnay good markaynu temperature-kii la soo baxnay haddana waxaan la soo baxaynaa labadan milan marka la isku daro heat-kii soo saareen bay la soo baxayn ICD base-ka marka la isku daro heat bay soo saareen heat-kiina weelkan yar calorimeter-kiina ugu jiraan saas daraadeed waxaan soo saaraynaa maxay heat-ka ay labada milan marka la isku daro ay soo saaraan hay maxaa odhanaynaa marka talaabada labaad marka waxaan odhanaynaa step-keena labaad waxaan odhanaynaa marka oo ay step 2 fine waxaad soo saartaa q oo taagan maxay heat-ka uu soo saaray marka waxa weyn maxaa la yiraahdaa milan labada milan marka la isku heat kala soo saaray oo heat-ka maxaa ku helinay sheega q maxaa lagu heli jiray mc delta t oo amaska milanka ayaa lagu shubanayay specific capacity-ga dabeedna temperature change-ka lagu soo dhufanay way maxaa odhanaynaa marka maski maxayna haysanaa maski waxayna haysanaa allahumma salli ala muhammad maski milanka ma haysanaa صح ماسك ملانكا ما يسنا لكن حين هيسنا وحين هيسنا بل هذا ده إنه إيه وحين هيسنا اللهم صل على محمد لبدي فوليوم بين هيسنا هذا حاجة النبي العلي وحين هيسنا لبدي فوليوم أيون هيسنا أو فوليوم كأيسيد هيسنا شن يلا واتنا ده يفوليوم كي بيس كشن يلا واتنا لبدي لا سكوت فوليوم كودي هيسنا لبدا فوليوم بعد سيدي بيو كلا لولا رقميا وايا أيسيد بيس كلا لبدا بو حكومي البيو مركز سيدي بيو كلا لولا رقمنا حالنا لبدا ودي كن سكوت درما أيون ماسك وقادنا أنا marka 5 nooga weemsa konton kaasina waxay inoola mid yihiin 50 gram 50 cm cubic marka la isku daro maxay inoola mid yihiin 50 gram way density-ga biyaha 1 gram per cm cubic ku dhufanayna horeynu soo aragnay dabeetida biyaha loola dhaqmayaa marka 1 gram per cm cubic lagu dhufto cm baa isla bixi doona dabadeedna 25 gram iyo waxay noo soo bixi doonaan 50 gram bay noo soo bixi doonaan halka waa la fahmaan malaynay halaan marka 25 loo geeyo 25 waa 50 cm cubic u bedel gram waa 50 gram bay soo baxaysaa waxaan marka 50 gram marka waxaad sameynaysaa ICD base-kaaga la isku daray mar walba labadooda folium waa lagu siinayaa isku dar labada folium marka isku darto dabadeedna u qaado maski haddii maska toos lagu siiyana labadooda maas isu geeyo way specific ana waxaad qaadanaysaa specific capacity biyo oo isu ahaan jiray 4.2 joule per gram per Kelvin markaan gram ku cabireen way okay oo lagu dhuftay maxay specific ee waxa la jeedaa delta t maxay noo soo baxday 5 Kelvin bay noo soo baxday
hay maxay isku hoosanay marka Kelvin iyo Kelvin gram iyo gram inta markaan isku dhufano maxay noo noqonay inta markaan isku dhufano xagaas waxay noqonaysaa ku dhufo 100 waxay noqonaysaa 420 lagu sii dhiftay 5 marka 5 markaan ku sii dhufano waa 0 way yahay hadana 5 ku dhufo waa 10 0 albaseta 5 ku dhufo waa 20 iyo halkii waxay noo noqotay marka 21 20 waxay noo soo baxday marka 2120 joule ayay noo soo baxday unit ka soo waa joule intaas waa maxay intaas arday waxa weeye waa heatka oo milanku soo saaray labada milan marka la isku daro intaas oo headay soo saareen haddaba inta oo heada la soo saaray xagee ka timid markay ay sida la barxay weey ay sida la barxay mise ay been oran hadana ileen enthalpy change of neutralization baynu raadinayna enthalpy change of neutralization waxaad ku helaysaa waa enthalpy change ka dhacay marka hal mool ay sida la barxo waa heatka la soo saaro marka hal mool ay sida la barxo haddaba inta oo heada la soo saaray laakiin mise mool ay sida la barxay baynu sideenin marka intii mool ay sida la barxay baynu raadinayna hay talabada saddex marka waxa oranayaa fine waxaan raadinaynaa fine moles of acid neutralized mole of acid neutralized molka acid ee la barxay soo saar molka acid ee la farx maxaan ku helaynaa waxaynu haysanaa bal hadda xagga niyargeey waxaynu haysanaa arday alla masala acid aan haysataa acid waxay haysataa concentration keedii iyo volume keedii sooma concentration keedii waa 2 mole per decimeter cubic volume keedina waa 25 centimeter cubic kadib waxa la oranaysaa volume concentration iyo hadda haysato volume molka maxaa lagu helaa good molka waxa lagu helaa volume ko lagu dhuftay concentration ke volume keena isku dhufanayna waxaan helaynaa dabeetana molka acid oo macalin concentration base ka miyaan isticmaalin maya uma baahni waxaan qaadanaynaa waxa weyn maxaa la raadayay molka concentration ka acid iyo volume ka acid bas labadaas kale isticmaalaan xaggeen inagu soo celi marka maxaa raadaya molkii acid la barxay waxaan ku helayaa arday concentration ka acid oo lagu dhuftay volume ka acid good way concentration ka acid maxaa haysataa waa 2 mole per decimeter cubic volume ka acid maxaa haysanaa 25 centimeter cubic laakiin 25 centimeter cubic u bedel decimeter way decimeter kan iyo decimeter kan doonaysa inay isku hoostaan marka waa in 25 decimeter ka dhigtaa maxaad u qaybinaysaa marka good kun baa loo qaybiyaa hadda centimeter haysato decimeter ka dhigayso kun u qaybi marka intan kun u qaybi 25 kun u qaybi halkaas point yala kun marka loo qaybi waxay noqonaysaa 0.025 decimeter cubic intaas ay noqonaysaa maxaa isku hoosanaya decimeter iyo decimeter baa isku hoosanaya good kadib maxaa soo baxay 2 baynu inta ku dhufanayna marka 2 marka inta ku dhufano waxay noo soo baxaysaa 0.5 miya okay inta hadda marka waxa weyn maxaa la raadayay isku dhufano balada isku dhuftaa waayahay inta markaan isku dhufano maxay noo soo baxday waxay noo soo baxday 0.2025 ayaa waxaan ku dhufanaynaa 2 Sooma waxay noo soo baxday 0.05 okay inta markaan 2 ku dhufano waxay noo soo baxaysaa marka isku dhufatan maxay noqotay good 0.05 moles of hydrochloric acid oo waxay ka dhigan tahay intaas oo acid ayaa la barxay haddaba intan oo acid markii la barxay waxa la soo saaray heatkana la soo saaray adna maxaa doonaysay waxa doonaysay enthalpy change of neutralization macnaheedu yahay maxay markii hal mole acid la barxo marka maxaa oranaysaa intan hal mole lama barxine 0.05 mole baa la barxay intan oo heada la soo saaray ee tan hal mole maxay soo saaraysaa good ayaan oranayna kabadhagan hadaynu tagno adoo intan niyadeeyo haya ayaan dhigan marka waxa weyn maxaa la dhahday aynu tagaynaa haye way maxaan dhahaynaa marka waxa weyn maxaa la dhahdaa okay waxaan oranaynaa talaabada ku xigta talaabada waxay noqonaysaa afraad maxaan oranaynaa fine soo saar enthalpy change ki soo saar hadaba enthalpy change of neutralization soo saar enthalpy change of neutralization soo saaraya waxaan oranayaa in mole ay sida la barxay waxa la barxay 0.05 mole oo hydrochloric acid la barxay waynaga xaga ku soo saarnay way heat kala soo saaray bisoo aha heat kala soo saaray wuxuu ahaa 2100 joule intaas oo joule tolow hal mole hadii la barxana imisa ayaa la soo saari lahaa x taas waxay u taagantahay enthalpy change of neutralization waayo hal mole ay sida hadii la barxo heat kala soo saaray ayaa noqonaya enthalpy change of neutralization marka maxaan oranaynaa x xagan ku dhufo 0.05 x equals xagan waan ku dhufo waxba ku diray 2120 joule dhinac walba horgalaha u qaybi 0.05 xagana u qaybi 0.05 labadan way isla baxayaan x maxay noo soo baxaysaa marka inta marka loo qaybiyo maxaa la yiraahdaa waxay noo noqon doontaa haye bal haday soo qaybiya inkaan nidayo soo qaybiya waxay noo noqotay 2120 maxaad u qaybisay 0.05
0.05 waxay noqotay maxay ardayay 4 2 waxaa la yiraahdaa 3 joule bay noqotay joule per mole laakiin maxaa odhanaynaa enthalpy change ka kilojoule per mole baa lagu cabiraa marka waxaa odhanaynaa therefore macaaniinta 3 dhibcood dabeetana enthalpy change of neutralization waxay noo soo baxday intan kunu sii qaybi waxay noqonaysaa 4 2 kilojoule per mole bay noqotay minus na raaci waayo waa exothermic oo maxaad ku garatay inuu yahay exothermic temperature rise final temperature ka badan initial temperature ka marka maadaama temperature rise zero waa exothermic minus bayna ansarta delta t delta h ka raacinayna enthalpy change ka raacinayna waa taa jawaabtii la inoo diray marka jawaabtii la inoo diray waa taa arinta talaabooyin marnay maad garanaysan imise talaabooyin marnay waxaan marnay afar talaabo talaabada kood maxay la soo baxnay delta t oo ah temperature change talaabada labaad maxay la soo baxnay heatka milanka soo saaray labadooda marka la isku daray talaabada saddexaad maxay la soo baxaysaa mole-ka ay si la baxay marka mole-ka ay si la baxdo aad hesho la baxo aad hesho ayaa soo saaraysa enthalpy change of neutralization oo maxaa oranaysa inta mole ay si la baxo ayaa soo saaray heatkii aad heshay tolo hal mole muxuu soo saari lahaa dabeedna criss cross saa waxa kugu soo baxaya waxa weyn maxaa la enthalpy change of neutralization halka arday waxay noogu markaas waxa weyn maxaa la yiraahdaa dhammaada in si loo cabiro enthalpy change of neutralization kuwa buugaaga ku yaala ka shaqeeya exercise-ka sidoo kale imtixaanada hore ku jira ka shaqeeya aad loo dalaado gurigana joog oo guriga wax ku baro si aynu caafimaadkeena u wada ilaalino assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh